baryahan dadka Soomaaliyeed dhagooda waxa ku soo dhacay arinta Soomaaliya iyo Ethiopia ka dhaxtaagan arintaas arin nasiib darro ah waaye kuma faraxsanin inay dhacdana sax ma ahayn nasiib darro dawladda Ethiopia garaawshiyo waa laga waayay dadka Soomaaliyeed waa og yihiin caalamkuna waa og yahay 1960kii laga soo bilaabo ilaa iyo 1990kii Ethiopia anaga dhul ku sheeganayna iyo dad Soomaaliyeed anaga maqanaan lahayn dalka Soomaaliya xuduudihiisa marka laga baxo dad Soomaaliyeed meesha ugu badan ay ku nool yihiin waa Ethiopia dadkaasaan xuquuqdoodii iyo danahooda daba taagnayn muddadaas maanta waa nasiib darro Ethiopia inay iska dhaadhiciso kuwaas inay meel inta dhigatay ay dalkii xorta ahaayo shalay ay u soo noqotay tiracadaan ka goosanaya maanta horta dadka Soomaaliyeed waxa inay fahmaan arab waa intaas jamhuuriyaddii Soomaaliya ee 1960kii dhalatay ayay Ethiopia maanta daba joogtaa ay leedahay cadaan ka goosanaya horayna uma ayan dhicin maantana ma dhacayso Soomaaliyoon dawlad lahayn Soomaaliyoon xadaaradii ilbaxa maanta ay leedahay aan lahayn qabaa'il degan ah ayaa diiday Ethiopia inay dhulkana qaadato badan xoog ku gaarto maanta badan xoog ku gaaraa waa dariim waa riyo aan rumoobeen waana lagu soo tijaabiyay badeena horaana lagu soo tijaabiyay nalooga mara guuleysan tanna looga guuleysan maayo Soomaaliya waa dal xeeb dheer leh oo ku yaal qaaradda Afrika dalalka adduunyada siday u macaamilaan inaan u macaamilnaan diyaar u nahay nalama khasbi karo dhulkeenna nalagama khasban karo waxa laga rabana nalagama khasban karo haddaanan anaga raalli ka ahayn oo sida aan anagu u rabno aanan loo samaynayn oo nidaam iyo sharci iyo xeer la yaqaano caalami ah dhexdiisa aan lagu shaqaynayn Ethiopia shalay qaanuunka international law-ga ee caalamka jiro ayay dhinac martay maanta markii hal wada hadalada yarina wali way diidan tahay qaanuunka caalamiga inuu ku soo noqoto oo qawaaniinta caalamiga dhexdeeda aan ku wada xaajoono Soomaaliya waxa difaacayay muddadii ay tabarta dareed qawaaniinta caalamiga ah difaacday shalay Ethiopia way diidaneed gobnimada dalka Soomaaliya ay dafirtay maanta la joogana wali ma aqoonsana bari waa maalin kale maanta la joogaa wali ma aqoonsana waxaan wada hadalkii Ankara aan uga soo kala tagnay waa intaas inay diiday ilaa hadda ay diidan tahay Soomaaliya dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay taas ilaa ay ka aqoonsanayso badna kama hadli karno maxaan ku iraahdaa ganacsina kama hadli karno wax kale oo ka hadli karno garanayna annaga ma jirto qofkii garanayo nagu qanci karana uu noo imaan karaa uu noo sheegi karaa dadka Soomaaliyeed nasiib darro waxa ah dadka Soomaaliyeed qaarkood qadiyadaasi inay walax annaga aan siyaasad ka dhex raadinayno siyaasadeynayna inay tahay maya ma aha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya annaga naloo doortay mas'uulna ka ah dawladeeda dhowr maraa sheegay shalayna kamaanan ogolaanin maantana kuwa kale yimid ka ogolaamayna kuwa biri ima doonaan kuwa naga dambeeyana ma ogolaa doonaan siyaasad naga ma aha daris nacayb naga ma aha xuquuqdeennoon ilaashanayna waay shaatigeena inta nalagu qabsaday yaan waxaan ogolaanay inaan ka xaajoono meel ka sii dambayso loo noqdo ma qabno wada xaajoodkaas waxaan ku rabnaa wax aan leenahay in laga leexdo bas wax kale iyo dib kale iyo dood kale iyo dacwo kale qabno mala Soomaaliya ogaada colaad ma qabno diris xumeyn ma qabno dib kale ma qabno waxaasi si loo waxeeyo inta soo jar ayaa dawladda Ethiopia ay meelo badan naga waliba naga xata xalanteynaysa inaan xanaaqno oo hindisno oo qaylino oo caaytano oo baxayda ayadoo raadinayso ma aanan sameyn hal hadafaan leenahay halka hadafaan leenahay waxa waaye gobonnimada madax banaanida midnimada dal iyo dad ee Soomaaliya inaan la soo faragelinin taasaan ku taaganahay wada hadaladii waxaan rabaa inaan amaano walaalaheen Turkiga way ka shaqeeyeen way dadaaleen annaga xaggeena kama niyad jabin
soo haray soomaaliya dala dowladaha hebel iyo hebel waxbay saaxiib la tahay iyo waxbay la heshiisay iyo waxbay la dhacday waxa ayaantan dowladda Ethiopia intaas Soomaaliya waa xor ciday doontay la heshiinay maslaxadeeda ay ka dhex aragto cid kasta oo danta Soomaaliyeed mutual danahayna fulinayso danahoodan fulinayna ciddii aan danaheena ka soo horjeedana danaheedaan ka soo horjeesanayna maba shakina nooga ma jiro dowladda Ethiopia mar kale waxaan leenahay darisaan nahay ismaanaan dooran idinkuna nama dooran annagana idama dooran darisaan nahay xuduudda ugu dheer ee iyagu ay leeyihiin annaguna aan leenahay xaq dhowridaan isku leenahay aan isxaq dhowrno boogihii shalay ee bogsaday yaan dib loo xoqin oon laga dhiijinin aan leenahay